laakiin maadaama markii dambe aan ka mid noqday saraakiishii ciidamada wax badan baan yaan kala socdaa dagaalkaas uu dhacay طبعا dagaalkaas dowladda Soomaaliya si fiican bay ugu diyaar garowday diyaargarow waxay u diyaar garowday anina ba caadi ahayn hadday ciidan ahaan lahayd hadday hub ahaan lahayd hadday dhaqaale ahaan lahayd way u diyaar garowday dowladda Soomaaliya xaqiiqatan markii la yiraahdo siyaasad aad waa maasabta waa dhawa injineer waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaad waqti badan usoo joogtay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya sidee ayaad noogu qeexi kartaa xiriirka labada dal taariikh ahaan maxaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya bismillah labada wadan horta taariikh ahaan way kala fog yihiin oo wadanka Itoobiya waxaa la yiraahdaa wuxuu dowlad noqday 300 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise marka waa dowlad guun ahayd oo muddo jirtay waay aad u daaweyn Soomaaliya marka sida ma ahan oo taariikhda Soomaaliya maaragtay sistamyada ay soo martay nidaamyada ay soo martay dowladihii iyo dowlado badan meelo muhiim ah maadaama ay ku taalay dhibaatooyin fara badan iyo wadamo badan ayaa Soomaaliya soo hujuumay ama soo weeraray ama isku dayay inay qabsadaan marka dadka Soomaaliyeed inta badan waxay ahaayeen dad maaragtay dagaal u joog ah marka Itoobiya markii laga soo tago wixii mataqaanaa markii laga soo tago laga soo bilaabo dhalashadii Nabi Ciise oo dowladda Itoobiya ay tahay dowlad masiixi ah oo haysato maaragtay diintan la yiraahdo Orthodox oo ah asalkii Kirishtaanka la socota asalka Kirishtaanka waa Orthodox kadibna waxaa ka farcamay nimanka la yiraahdo Katoliga mar dhow oo dhowr boqol sano laga joogana waxaa farcamay nimankan hadda ugu xooga badan oo Mareykanka oo la yiraahdo maaragtay Protestant ayaa ka farcamay marka ayagu marka waxay haystaan diintii maaragtay bilowga ahayd oo maaragtay Kirishtaanka ayay haystaan marka waxaa la dhihi karaa waa Yuhuudda Geeska Afrika baa lagu tilmaamaa asal ahaana dad badan oo Yuhuud ka soo jeeda ku jira sida falaasho kale marka dowladda Itoobiya iyo Soomaalida xiriirkoodu weligood ma fiicnaanin waxayna ahaayeen dagaalo badan oo taariikhda galay ayaa dhex maray wuxuuna taariikhda waaweyn ee taariikhaha waaweyn la xuso waxa ugu horeeyay dagaalkii ama halgankii Axmed Gurey Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray qarnigii bilowgii qarnigii 16aad waa gartay maxay marka sababaha ugu waaweyn ee keenay dagaalada soo noqday ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex mara inta badan marka xaqiiq laga hadlayo dagaalada Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maro waxay ahaayeen dagaalo meel kale laga soo minguuriyay oo hadiya jeer waxaa lugta ku lahaa reer galbeed ayaa lugta ku lahaa wuxuuna u badnaa diin iyo dal مثلا وكالة أحمد قري حلقيسي أحمد قري وحوها نين شاننا وكاترسن دولة إسلام كا مركا أصابو مركا وحو جوي عدن أيا وحوها يوجوغي وشانا وحوها دولة إسلام كا مركا جرتي مطقانا مولاني عثمانيين تيني عايد مركا xilligaas marka wuxuu marka Itoobiyaanku waxay soo kubaareeyeen dhulka Soomaalida ayay aad u soo degeen marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal Itoobiyaanka looga xoreynayay dhulkii Soomaaliyeed ee ay qabsatay marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal waaweyn bay ahaayeen oo sanado badan socday aakhirkii markii Itoobiyaanka laga adkaaday oo la jabiyay
xilligaas dowladda adduunka ugu waxay ahayd Portuguese Portuguese wuxuu ahaa waxa la yiraahdo super power xilligaas adduunka asaga ku amar ku taagleynay waxa Mareykankan iyo waxaan xarun bay ahayn waagaas ma jirin marka Portugiiskii wuxuu haystay Hindiya asaga haystay marka Hindiya ayuu ciidamo xoog la ka soo diray oo u soo diray say Ethiopia u kaalmeeyaan ciidamadii hore waa la jabiyay haddana ciidamo badan oo kale آخركينا أحمد قري أحمد ابن إبراهيم الإله مركز جلان كاس دقال الضنبة أيو كلنتا وكشيد إثيوبيا دقال إثيوبيا دقال راس كلنتا متقانا إثيوبيا مدلنا وحد العيد مدي بورتغيسكا بدلي دقال كاس كلنتا صفي marka taariikhda Ethiopia iyo Soomaaliya hadda ma soo bilaabin bilowgii qarnigii 16aad sababta Axmed Gurey wuxuu dhintay Allahu naxariista wuxuu sheegay 1543 صفي ayuu dhintay marka sidee Ethiopia u aragtaa Soomaaliya marka la eego dhinaca juqraafi ahaan amniga gobolka Ethiopia sala socotaan adduunka waxa ka jiray xadaaro ma taqaana nidaamyo ama islaamiga ahaado ama magaciisa ahaado xadaarooyin baa ka jiray marka inta badan xadaarooyinka jiray waxay ahaayeen mid islaama iyo mid kirishtaana marka labadaas had iyo jeer waxa ka dhaxeeyay Soomaaliya oo iyaduna muslimiin ah iyo Ethiopia oo kirishtaana marka dagaal oo waxa ka socday cid muslimiintuna ay doonayeen inay awoodooda ku ballaariyaan kiristaankuna ay doonayeen inay awoodooda geeska Afrika ay ku ballaariyaan oo dowladdan guunka oo xabashida ah oo aad ka facaweyn kiristaankana ah wadamada muslimiinta dhexdoodana ku taalo in la difaaco marka difaacidaas had iyo jeer dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia markay diraraan waxa adkaanayay Soomaaliya laakiin sala socotaan mar walbo wadamada reer galbeedka ayaa caawinayay kii u dambeeyay 77 reer galbeedka oo Ethiopia la jirsaday iyo Soviet Union oo dagaalka soo galay iyo Cuba sidaana marka ciidamadii Soomaaliya ay ku khasabtay inay ka soo baxaan Soomaali galbeed oo marka la xoreeyay marka had iyo jeer isla socotaan xitaa xilligii maxkamadaha duqeynta maxkamadaha waxa ka qayb qaatay Mareykan waxaad garanaysaa haddaanu Mareykanku ka qayb qaadan lahaayeen reer galbeedku kama aamin qabeen in Ethiopia la qabsado waxaad garanaysaa had iyo jeer Ethiopiaanku waa dad la ilaaliyo inkastoo 100 milyan yihiin iyo ka badan haddana had iyo jeer Soomaalida oo 10 milyan ah ayaa laga ilaalin jiray markii dambe dowladda Soomaaliya ummadda Soomaalida waxa lagu jahawareeriyay qabyaaladda taasi waxay keentay marka in qabyaaladda ay Soomaaliya burburiso oo hadda meesha aan marayno ay marka ay aan istaagno haddaan weydiiyo dagaalkii 77 Soomaaliya iyo Ethiopia dhexmaray muxuu bilowday Ethiopia gandarneyd maxaan u sheegay kartaa marka gartar laga hadlay had iyo jeer Soomaaliya Ethiopia waxa gardaran Ethiopia gardaran markasta sideeda sababtoo Ethiopia mar walba waxay haysatay dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed marka mar walba ayada gardaran dagaal kasta oo la galo Ethiopia gardaran Ethiopia hadda waxay joogtaa Kismaayo shacab Soomaaliyeed oo ma yeeran dowlad Soomaaliyeed oo ma yeeran luuq bay joogaan laakiin dad Soomaaliyeed ila shaqo dabadhilifya waay marka dabadhilifku dadka wakiilka ma ahan waddanka shacabka wakiilka ma ahan marka waa dabadhilif waaye waa calooshid u shaqaysta waaye dhulkan Soomaali garabed markii la siinayayna dad calooshid u shaqaystayaal ah oo dabadhilif ah ayaa u sahlay marka had iyo jeer waxa weeye dadka maaragtay dabadhilifka ama dadka damiirka daran danahooda gaarka ayagoo ilaalinayo ayay ummadda duleystaan
marka waa taas waaye waxay taagan Ethiopia fiiri marka la fiiriyo hadda Soomaaliya Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkooda waqti badan ma wanaagsaneyn inta madaxweynaha hadda joogo uu imaaday dagaalo iyo siyaasada aan waxyaabo la isku haysta way jireen inkastoo ay u badneyd badii berbero badii Sayla wax la isku haysto marka saas ay tahay Ethiopia dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Ethiopia cadow ay tahay oo cadow soo jireen ah oo Soomaaliya duulaan ku ah inay tahay saas ay tahay safiirka Ethiopia waa joogay Soomaaliya diyaaradaha Ethiopia Soomaaliya waa ka shaqeynayeen Puntland Ethiopian baa joogay oo qunsulay ba ku leeyihiin Jubaland waa joogaan koonfur galbeed waa joogaan marka Ethiopia dee ma siyaasiyiinta Soomaalida jecel inay la shaqeeyaan mise qaab noocay ayay Soomaaliya ku joogaan horta sideedaba Ethiopiaanka Soomaaliya waxay ku joogaan burburka dartii Soomaaliya way burburtay qabaa'ilay u kala burburtay wala socotaan dagaal oogayaashii marka dad Soomaaliyeed oo mid ah oo hal dan leh ma jiro marka meelaha ay imaanayso waa meelo ayna awoodna ka jirin ciidan maaragtay awood la una joogin qabiilna dee iskama dhicin karo iskamana difaaci karo dowlad mataqaanaa reer galbeed daba taagan yahay dagaalka hadday galaanna dee cidtaa kulaynayso ma jirto marka waxay ku soo gelaysaa Soomaaliya waxay ka faa'iideysanaysaa tabardarrada iyo dadka damiirka daran ee Soomaaliya horboodayo ee qabyaaladu madax martay xaqiiqatan waxaan ka xumahay inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo Xasan Sheekh aad baan uga xumaa maxaa yeelay waxa uu ka shaqeynayo iyo dhibaatada Soomaaliya uu ku hayo iyo dulinimada Soomaaliya taalo iyo sida mataqaan amxaarada Soomaaliya u bahdilayso iyo boobka uu dadka dhibaatada uu dadka ku hayo ummadda uu kala qaybinayo dagaalada sokeeye ee mataqaana meel walba uu ka ridayo musuqmaasuqa kala qaybinta eexda waxaan ka baqayaa Xasan Sheekh dowladdii tabarta darnayd ee reer galbeed ku dhisay inay gacantiisa ku baxdaan ka baqayaa sababtoo ah haddii dowlad xun waa la hagaajin karaa waxaa laga yaabaa nin wanaagsan inuu yimaado laakiin hadday burburto way adag tahay in mataqaanaa dib loo dhiso oo dib laysu keeno hadda wax haykal dowladnimo ayaa maaragtay ayaa jira oo la sixi karo marka waxaan ka baqayaa isagoo adeegsanayo mooryaan qabiileed iyo dad mataqaanaa damiirkoodu dhintay oo ka fikiraya dhaqaalo iyo say wax ku dhoobi lahaayeen aan cidna u naxaynin oo mataqaanaa damiir laawayaal ah inuu mataqaanaa la awoodi waayo ama dowladda Soomaaliya tabarta daran ay gacantiisa ku burburto sababtoo haddee qabyaalad iyo in qabiil la riixo la socotaan hadda dagaaladii ka dhacday lagu eedeynaa marka Xasan Sheekh kali maadaama uu asiga horta federaalka weynaay u yahay maxaa lagu eedeynaa kaligiisa Puntland iyo koonfur galbeed iyo meesha la yiraahdo Jubaland waa joogaan Ethiopian ayagana yaa waxaa lagu eedeynayaa dowladda federaalka iyadaa dowlad wadanka ka ah waxaan kale maamul goboleedyo waaye marka maadaama maamul goboleedyad yihiin dowladda federaalka mas-uuliyad waxaa saaran wadanka dhan iyo maamul goboleedyadiisa uu ka tirsan yahay oo dhan inay maamulaan ayagaa laga rabaa waa dowladdii Soomaaliya waaye iyagaa dowladdii Soomaaliya oo qalinkii haysto waa gartay waa usoo laabanaynaa maxaa joognay Ethiopia iyo Soomaaliya dagaaladii 1977 waxaa sheegtay Ethiopia inay gardarneed dagaalkan soo dhac marka maxaa ka xasuusataa aniga markaas waxaan dhiganayay dugsi hoose dhexaan dhiganayay macnaha dee qof nin weyn ma ahayn laakiin maadaama markii dambe aan ka mid noqday saraakiishii ciidamada wax badan baan kala socdaa dagaalkaas uu dhacay dabcan dagaalkaas dowladda Soomaaliya si fiican bay ugu diyaar garowday
diyaargarow waxay u diyaargarowday aan inaba caadi ahayn hadday ciidan ahaan lahayd hadday hub ahaan lahayd hadday dhaqaale ahaan lahayd way u diyaargarowday dowladda Soomaaliya xaqiiqatan markii la yiraahdo siyaasad ahaan dagaalkaas oo ku fashilana diyaaradda siyaasad ahaan markaan ku fashilanay haddana military ahaan ama ciidan ahaanna waan ku fashilan dowladda Soomaaliya laakiin marka hore dee si fudud baan waxaan ku qabsanay dhulkanagii intiisii badnayd si fudud baan ku qabsanay laakiin dee waxaa yimid nimanka adduunka waxa markaa ka jiray Warsaw iyo NATO laba awoodood baa ka jiray marka labadiiba way nala dirireen taana waxaa keenaysay siyaasadeenna arrimaha dibadda oo aan maaragtay si fiican u shaqaynin dagaalkii keli baan ku noqonnay Soviet Union baa dagaal nala galay ugu yaraan 15,000 20,000 oo Kuubaan ah ayaa ka dagaalka ka qayb qaadanayay Yemen baa ku jirtay dagaalka Yemen ma Ethiopia la jireen Yemen soo dal muslim ah oo Arab ah labada Yemen iyo markaas laba Yemen bay ahaayeen marka labada Yemen midaan Sanca dowlad gaar ah ahayd marka taasaa waxay ahayd shuuci dowladdii Soviet Union saldhigna wuu ku lahaa marka Libya ku jirtay dagaalka ku jirtay Libya Soomaaliya la jirta Ethiopia la jirta ayada laftooda shuuci bay ahaayeen anaa wadamo badan oo muslimiin ah ayaa dagaalka ku jiray oo dhinaca Ethiopia jiray Soomaaliya marka culays weyn saaray Soomaaliya culays weyn baa fuulay taasi marka waxay keentay in Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay ogaatay inaan dagaalka la sii waday Soomaaliya marka boqolkiiba 9 dhulka Soomaali galbeed Soomaalidu way qabsatay boqolkiiba 9 way qabsatay marka xabiisi wada ma Soomaalida Ethiopia la qabtay marka Ethiopian fara badan baa la keenay oo beeraha lagu fali jiray oo ilaa iyo xilligii dambe ee maxaabiista la isdhaafsaday loo celiyo oo almana 5,000 inay ahaayeen baa filaya oo dalkooda lagu celiyay markii dambe dalkooda lagu celiyo oo la ka shaqayn jiray beeraha ka shaqayn jiray safiican maxaabiista marka niman inaga baa ku jireen labadaba ku jireen inkastoo rag u badnaayeen ma jira marka Ethiopia diyaarado laga soo riday dabcan diyaarado badan baa la soo riday oo intii dagaalka laga soo noqday xataa diyaarado badan baa la soo riday oo Ethiopia oo sababtoo dagaalku ilaa iyo wuxuu soo gaaray mar dambe ayuu soo gaaray 80 iyo kowdii Ethiopia waa ku isku day inay Soomaaliya dhan qabsadaan oo dagaalkii Balanballe iyo ay ku qabsadeen Galdogob ay ku qabsadeen ilaa 80 iyo 6 miyay ahayd baan maleynaya inay haysteen sanado badan bay haysteen safiican iyo 88 marka maxalada Ethiopia iyo Soomaaliya hadii la iska dhaxbaxo Soomaaliya dowlad xataa iyadoon ahayn oo xataa jabhad xoog leh haddii hadda maalan oo kaleeto ciidamadan AMISOM ee joogo Soomaaliya joogo calooshad u shaqaystayaasha ah reer galbeedka u kiraysan waxay ku yimaadeen markii Ethiopia ay Soomaaliya gashay oo ilaa Xamar ay qabsatay ilaa Kismaayo ay qabsatay dagaal badan oo dagaal rogaal celin ah xoog leh ayaa ku yimid waxayna noqotay in Ethiopia la jabiyo ayaa qarka loo fuulay marka iyadoo taa ka duulaysa AMISOM la geeyey marka Ethiopia sheekadeedii shaqay weyday waxaan oranaa Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa daba taagan oo dadaalka wado marka ciidamada AMISOM waa ciidamo calooshad u shaqaystayaal ah oo ilaalinayo kaniisadda Addis Ababa ku taalo marka xaqiiq laga hadla saas way ciidamada AMISOM oo joogan Soomaaliya inay dowlad Soomaaliya dhisaan oo joogan marka maadaama hadda ay ku jirto AMISOM maadaama ay ku jirto ciidamada safka hore door nooc ayay ka qaadan kartaa marka nabadeynta Soomaaliya AMISOM
amisom looguma talagelin soomaaliya inay nabadeeyaan maba loogu talagelinba nabadna kama shaqeeyaan amisom waxay u shaqeeyaan wadamada reer galbeedka waa caloos shaqaystayaal soomaaliya la keenay oo afrikaana waay laakiin dhanka kale inta yare hadda soomaaliya ka jirto ama muqdisho inay nabad ahaato dowlad ka jirto ayaga u sabab ah sababta hadda lafteeda haddii ayna ciidamada afrikaanku ayna joogi lahayn xamar haddayna joogi lahayn xamar waxay noqon lahay meel oo haddaana dee qolo xoog la qabsan meel bahallagaleynay noqon lahayd oo waxay ku noqon lahayd sideedii hore marka amisom markii la fiirsho arrin soomaalidana way kala ilaaliyaan soomaalidana way kala ilaaliyaan xamar joogto iyo meelaha ay joogaan haddana dowladnimadana way ka ilaaliyaan macnaha wayna burburinayaan wayna ilaalinayaan oo markaad fiiriso airboorkoo kale ayagaa ilaaliyo dekadoo kale ayagaa ilaaliyo airboorku ma furnaadeen haddii haddaanay amisom joogin taas dhankaas waa positive oo waxaad arkaysaa dee airboorka waa la isticmaalaya amisom baa joogto xamar iyagii baa joogo oo madaxtooyada ayagaa joogo oo qolo maaragtay ama qabiil intuu isoo abaabulo ma weerari karo dhankaas waxaad moodaa inay ay positive ka tahay laakiin dhanka kale waxa weeye dhagar qabayaal ayaa meesha keensaday oo reer galbeed ah marna Soomaaliya dawladnimo la doonaynin waa dhagar qabayaal waay marka fiirisan marka Itoobiya waxay door muuqda ku leedahay amisom ama ATSM wax la yiraahdo sidee ayaad u aragtaa doorkaas madan Soomaaliya mise dan Itoobiya sidaadaba dee horta sidaadaba danta Soomaaliya baa ka shaqeyn karto danta Soomaaliya baa ka shaqeyn karto Itoobiya dan Soomaaliyeed kama shaqeyn karto suuragalna ma inay ka shaqeyso amisom dan Soomaaliyeed kama shaqeyn karaan Mareykan dan Soomaaliyeed kama shaqeyn karo waa been waaye danahooday u joogaan meesha Itoobiya danteeday u joogtaa Soomaaliya amisom danaheeday u joogaan Soomaaliya waa caloos shaqaystayaal waa lacag xoog leh wadankoodii geliyaan haddii laga kale wadamada reer galbeedka Soomaaliya danaheeda kama shaqeyn karaan danaha reer galbeedka u joogaan Soomaaliya Soomaalida la rabaa inay danaha Soomaalida ka shaqeyso waxaana mar walbo Soomaali baad danta Soomaaliya ka shaqeyn karto taas waaye danta Soomaaliya waa ka shaqeyn karto laakiin Soomaalidu hadday qabyaalad iyo kala qaybin iyo musuqmaasuq iyo ka shaqeyso iyo qaatay qaado amisom danaha Soomaaliyeed kama shaqeyn karto Mareykan danaha Soomaaliyeed kama shaqeyn karo mana dhisi karo Soomaaliya ujeedadiisana ma inuu dhisabo hadduu rabo daacad ka yahay wuu dhisi karaa dowlad Soomaaliyeed Mareykanku asbuucyo ku dhisi karaa hadduu daacad ka tahay sababta dhaqaalana wuu haystaa awoodna wuu haystaa hadeerna waxa joogo dhan hadda maanta waxaan akhrinayay Mareykanku sanadkii la soo dhaafay 3.6 bilyan ayuu ku bixiyay Soomaaliya lacagtaas burburka Soomaaliya bay ku baxda ma ku bixin toos ah dowladda Soomaaliya